waxaa muuqda sansaan colaadeed oo haddii aan ka hortag loo helin ka dhici karta dhanka iyo magaalada Gaalkacyo maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku wajahan yahay koonfurta magaaladaas halka waqooyigana Siciid Cabdullaahi Dani uu abaabul ciidan oo ka dhan ah baajinta safarkaas uu halkaa ka wado ila kala duwan ayaa warbaahinta xuraansi waxay u sheegeen in hanjabaadda ciidanka diyaar garowga iyo qabanqaabada saansaanta muujinaya in dhinacyadan ay iswajihi karaan in ay hadda ka jirto magaalada Gaalkacyo iyadoona maamulka Galmudug ee uu martida u yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhankooda ay wadaan abaabul xooggan oo ay ku doonayaan in aanay baaqan safarka madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmaha soo socda tagi doona dhanka iyo magaalada Gaalkacyo isagoona dhanka iyo magaalada beri oo sabti ah safar dhulka ka bilaabi doona magaalada Dhuusamareeb kuna tagi doona deegaano dhowr ah oo Galmudug ka tirsan Siciid Cabdullaahi Dani maamulkiisa warqad uu soo saaray waxa uu si cad u sheegay in ay ka hortagi doonaan awood ciidanna ay u adeegsan doonaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tago koonfurta magaalada Gaalkacyo oo maamul ahaan Galmudug ay hoos tagto mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa dhankooda waxay noo sheegeen in abaabulka iyo saansaanta socota aanay suuragal ka dhigi karin in la baajiyo wafdiga madaxweynaha Soomaaliya taasoo ka dhigaysa in haddii Puntland ay isku daydo in ay dhanka iyo Galmudug ay tallaab ka qaado ama ay weerarto in xaaladdu ay isu bedeli karto in ay isku dhacaan labada maamul sida ay sheegayaan khubarada dhanka amniga iyagoo ka tusaale qaadanaya waxa hadda ka socda dhanka iyo deegaano ka tirsan gobolka Mudug saraakiil iyo mas-uuliyiin dhanka amniga ayaa waxay noo sheegeen in abaabulkaas haddii aan laga baaqsan wax walba oo keeni kara isku dhac in xaaladdu ay keeni karto colaad mar kale ka soo ifbaxda magaalada Gaalkacyo oo horay Galmudug iyo Puntland heshiis dhex maray nabadgelyo askuntay halkaas ay ka dhalatay labada maamulna ay kol hore ka heshiiyeen madmadowgii siyaasadeed ee beelaha halkaa dega soo kala dhex geli jiray walow muddooyinkii u dambeeyey arrintu ay u muuqatay in si hoose ay u soo cartamayso marka la eego dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee halkaa ka jira saraakiil mas-uuliyiin iyo xubno kala duwan oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa kol horeba sii gaaray magaalada Gaalkacyo mas-uuliyiin Galmudug ah ayaa sii tegay magaaladaas kuwaas oo deegaan doorashadu tahay dhanka iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo Puntland waxay dhowaan dhegta dhiigga u dartay ciidan ka tirsan kuwa federaalka oo bariga magaalada Gaalkacyo ku sugnaa kuwaas oo xeryihii ama hubkii ay haysteenba ay ka qabsatay iyadoona wixii hadda halka ka dambeeyay maamulka Siciid Danina uu sheegay in uu ciidanka federaalka iyo mas-uuliyiinta taageersan dowladda federaalka in aanay joogi karin deegaanada maamulkiisa taas oo keentay hadal heen iyo falcelin xooggan oo bulshada iyo siyaasiyiinta dhexdooda mas-uuliyiin ka tirsan dhanka Puntland ayaa siyaasad ahaan ishaya iyagoona u arka qaabka Siciid Cabdullaahi Dani uu u wajahayo dhanka iyo federaalka in aanay ahayn mid wanaagsan isla markaana sooyaalkiisa siyaasadeed mustaqbalka xilka uu raadinayo ee federaalka dhaawac halisa arrintaas uu geysan karo waxay dadka qaarkood kula taliyeen Siciid Dani in uu kala saaro xasan iyo xamsa iyo qaranka intiisa kale taasoo keenaysa in labada mas-uul is hayaan mustaqbalka dhow ay ka bixi karaan siyaasadda Soomaaliya laakiin hadalhaynta iyo raadadka uu reebana abuurkiisa beri uu soo bixi karo sida ay sheegeen saraakiil iyo xubno khubaro ah oo dhanka ciidanka iyo siyaasadda ku takhasusay waxaa laga digayaa isku dhac ka dhici kara magaalada Gaalkacyo iyadoo laga baaqsan karo sifo walba oo siyaasadeed waa haddii la qaado tallaabooyin dhanka isfahamka iyo sidoo kale isla hadalka ku xiran waa haddii dhinacyadan ay hoggaansamaan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dabcan qaadan doona ilaal aad u fara badan ciidamo badan ay ka horeeyaan joogaana magaalada Gaalkacyo ayaa waxay adkeyn doonaan amnigiisa iyagoo ay ka hortagi doonaan cid walba oo isku dayda in weerar ay soo qaado Puntland sida muuqata
iyaga ayaa ku goodinaya inay ka hortagga sameyn doonaan, waana midda keenaysa in Siciid Cabdulaahi Dani uu wajaho culays dhanka siyaasadda iyo natiijo walba oo laga liso xaaladda siyaasadeed iyo waxyaabaha uu doonayo in deegaanada Puntland uu ka sameeyo. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ay siyaasad ahaan isku dhacsiin dowladda federaalka ayaa gudaha maamulkiisa waxa uu ka sameeyay howlgallo xooggan oo ka dhana xubnaha ku xiran dhanka federaalka, taasoo keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnahanba diiradda ay saaraan dhaqdhaqaaqyada iyo abaabulka kala duwan ee la xiriira arrimahaasi. madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa qudhiisa doonaya in dowladdu qorsho iyo taatig cusub ay la dheesho maamulka Puntland, maadaama wejiga hore ee siyaasadda magaalada Gaalkacyo, Boosaaso iyo deegaano kale xarmay ka mid tahay lagu adkaaday ciidankii sheegay in federaalku ay ku biireen. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa siyaasadda kor kala socda, iyadoona ciidan ka soo jeeda dhanka iyo Puntland la sheegay inay ku sugayeen magaalada Xananbuure ee gobolka Galgaduud, iyadoona halkaasi ciidamadaas ay yihiin kuwa ku xareysan waa kuwii lagu adkaaday bariga magaalada Gaalkacyo, hubkoodii iyo xeryadii ay joogeenna ay qabsadeen ciidanka Puntland ee Siciid Dani amarka tooska uu siiyey. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigtay warbaahinta Xuraansi ayaan idinkula wadaagi doonaa. Fadlan aragtidaada sida loo baaji karo dagaal ama dhiig ku daata magaalada Gaalkacyo qaybta hoose nagula wadaag. waad ku maasan tahay daawashada iyo ku xirnaanta channelkayaga.